shirkadda nadaafadda deegaan door ay nagu soo biirtay oo outsource ah banaanka inoogu timid markii ugu horeysay anaga gacanta ku haynay isbitaalka nadaafadiisa iyo shaqaalaha nadaafadda adeega nadaafadda ka shaqeeya runtii dhib badan ayaan kala kulnay muddada sanadka ka yar ee uu isbitaalka gacanta nadaafadiisa gacanta nagu jirtay balse markii problemku culaysku uu nagu batay ayaa waxaa la go'aansaday boorkuna go'aansadeen hay-aduna go'aansatay in cid ka madax bannaan isbitaalka maamulkiisa in loo dhiibo oo qabta adeega nadaafadda ah nasiib wanaag waxaa ku guulaysatay deegaan door January 2018 ayagoo aanan muxuu ahaa hataa dad ama muxuu ahaa wax ka baxsan wixii hore lagu qaban jiray aan banaanka keenin laakiin shaqaalihii tababar u sameeyeen oo ay nagala wareegeen shaqaalihii tababar ay u sameeyeen qalab ay ku shaqeeyeen ay u keeneen iyo qof supervisor ah oo monitor gareeyo shaqooyinka ay qabanayaan runtii bil gudahooda waxaa muuqatay in bilaacdii isbitaalka iyo nadaafadda isbitaalka ay dib ugu soo noqotay wixii intaa ka dambeeyay maalin ka dambaysa wuu sii wanaagsananay waxyaabaha runtii aan aad ugu xasuusan karno ee qabatay deegaan door waxaa ka mid ah adeeg caafimaad oo bulshada noocyadeeda kala duwan oo ay ku jiraan kuwooda u liita oo haweenka iyo carruurta ah oo aad markii liita ka wada calashaan dhinaca qawadda ama xoogga wax lagu qabanayo oo ay daily ama maalintii ay yimaadaan tiro badan oo 200 kor u dhaafaysa in haddana aysan nadaafadiisu waxba iska bedelin hoos u dhacna aysan muuqan ilaa inay kor u socoto moogiye hadda isbitaalka dhex joogtaan oo aad soo aragteen nadaafadiisa dhinacyo walba ah ee furan 2 sano iyo ziyaada 3 sano furan yahay 2 sano muxuu ahaa deegaan door ay gacanta ku haysa in hadda gacanta laga qaado maysaa la dhisay xaqiiqatan taana waxay ku timid dadaalka ay deegaan door bixisay iyo wada shaqaynta maamulka isbitaalka dhex martay hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwa gudaha ah iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee gudaha ku nool iyo qurbo joogtii dalka dibad ugu soo noqotay intuba markii ay bixinayaan comments-yada ama se baraha bulshada ama se sanduuqyada aan leenahay cabashada ama muxuu ahaa tala bixinta waxyaabaha ugu horeeya isbitaalka ku amaanaan waxaa ka mid ah nadaafadda isbitaalka oo runtii aad dareemaysaan inuu hotel 5 stars oo kale uu lamid yahay waxba kaga duwaneen isagoo intaasoo mujtamac ah sarfi garanayo u shaqeynayo waa waxqabadka deegaan door ayay ka mid tahay waxaan qaadanaa meeting ama wadatashi 2 isbuuc mar ah ama bishiiba mar ah oo aan ka wada hadlayno meelihii wax ka soo baxaan oo loo baahan yahay in wax lagu kordhiyo ama meelihii xogaa yar dabacsanaan ka timaado oo la bedelo ama wax nadaafadii wax laga qabto u baahan taasna waxay keentay in laga war joogtay laga war hayo in qayb kasta oo dhibac yar ku soo birta in la arko dana la wadaago horena wax looga qabtaa faa'iidooyinka ama waxtarka ay qabatay deegaan door runtii markay mas'uuliyadaas nagala wareegtay waxaa ka mid ah inagoo aan marnaba ka walwalin kana seexanay mas'uuliyadda ku saabsan nadaafadda oo kaliya aan ku ekaano kaliya kormeer iyo hubin wixii qabsoomay oo taasi waxaan naga meel saarmay inaan muxuu ahaa wax cabsi ah aan ka qabin dhinaca nadaafadda ah waxaa kaloo ka mid ah dadka jiifa bukaanada ah iyo dadka soo booqdaba inay ku qanacsan yihiin kuna qanceen adeega ama serviceka caafimaadka ee qaybta nadaafadda isbitaalka uu ka samaysan yahay